ha gudbin walaal ee in yar i dhegayso. waxaan kuu sheegayaa waxaad ku liibaanaysid. maanta waa Arbaco, habeenka Khamiista soo socdo oo bishan Shacbaan ay tahay 15 waxaa dhacayo arrin weyn oo Ilaahay xaggiisa ka ahaaday ayaa dhacayo. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, habeenka bisha Shacbaan ay tahay 15 Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu taalacda addoomihiisa, kadibna dhammaantood waa u dembi dhaafaa. laba qof ma ogiye, qof mushrik ah oo Ilaahay wax la wadaajiyey, iyo qof cugdudow ah oo cugdud iyo xasad qof walaalkiisa muslima qalbiga uga hayo. labadaas Ilaahay uma dembi dhaafo, inta kale dhammaan Ilaahay waa u dembi dhaafaa ayuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam. walaal cafi walaalkaaga muslimka ah, igana ballanqaad dhammaan inaad cafinayso dadka. miiga ballanqaaday walaal? waxaad ii soo qortaa dhammaan waan cafiyey, cid kasta waan cafiyey ii soo qor. waxaan kale kaa codsanayaa Ilaahay dartiis muuqaalkan inaad dad fara badan aad gaarsiiso oo aad xusuusiso ayagana insha Allahu tacaala, oo calaamadan 20 martabo insha Allahu tacaala aan iscafinno. aniga qof kasta waan cafiyey, cid kasta waan cafiyey, qof kasta musliman waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga iyo adigaba ha inoo dembi dhaafo habeenka asaga ah. dhammaan muslimiinta Ilaahay ha u dembi dhaafo, qof kastana muraadkiisa Ilaahay ha u yeelo insha Allahu tacaala. asalaamu calaykum.